waxaan rabaa maanta inaan halkan ku cadeeyo dhacdo ka dhacday degmada Wadajir sagaalkii bishii 11aad 2022 oo shalay ahayd abaaro 4 saac subaxnimo waxa checkpoint ka tirsan checkpointiyada saldhiga Wadajir uu ku leeyahay degmada Wadajir ayadoo howlihii maalmeedka ka socda amarkii lana fulinayo amarkii taliyaha booliska Soomaaliyeed oo ahaa sugidda amniga iyo la dagaalanka burcadda habeenkii dadka dhacda waxa saldhiga Wadajir qaaday talaabooyin lagu sameeyay checkpointiyo tiro badan ee wadooyinka waaweyn ee degmada soo gala ayadoo ciidanka booliska Soomaaliyeed uu gudanayo waajibkii checkpointidaas ay waxay qabteen mooto taarga la'aan ah oo watay muwaadin Soomaaliyeed waxayna ku amreen in mootada sharcigeedii uu soo keeno lana waafajiyo sharciga maadaama ay taarga lahayn lana geey doono saldhiga Wadajir markii goobta la dhigay milkiilihii mootada wuxuu telefoon ka wacay gaari saaruf ah oo taarga la'aan ah oo ay saarnaayeen 4 askari iyo nin xidigla oo lagu magacaabo Xasan Daandurey oo ka tirsan Turkisom markii ay goobta soo gaareen askarigii booliska waxa uu soo degay 2 nin oo tuuta sidata waxayna ku bilaabeen xabad goobtii waxa ku geeriyooday askarigii booliska ahaa oo asagoo gudanaya waajibkiisa lagu soo weeraray checkpointigiisa xabadii markay dhaceen askari la socday ayaa iska difaacay qolihii wax soo weeraray ee uu hogaaminayay xidigle Daandurey ayagoo xabadii ay socoto ayaa waxa si lama filaan ah wadadii ku soo galay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada Wadajir oo asagana isla markii xabadihii la hujiyay asagana iska difaacay waxa goobtaas ku dhintay askarigii lagu soo weeraray booliska asagoo waajibkiisa gudanayay lagu dilay goobtiisa shaqo iyo xabadii dhaxmaray gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada iyo qoladii wax soo weerartayna waxa ku dhintay hal qof kale oo askari booliska laba ku yahay iyo 2 nin oo ku dhaawacantay qoladii soo weerartay goobta ayaana mid ka dhintay 2na ka dhaawacantay goobtaas waa goob sharci ah oo control ahayd booliska Soomaaliyeed waajibkiisa uu ka gudanayay mootada la qabtayna sharci darro ahayd qolada soo weerartayna waxay goobaysay mootada sharci darrada lagu qabtay waxayna si xoog ah ku furareen mootadii markii ay askariga dileen waxay goobta ka kaxaysteen mootadii waxayna hore u qaateen qorigii uu lahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed ee uu watay askari goobta lagu dilay shaqeynay hadaba bulshada Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa dhammaan mootoleyda iyo dadka wata baabuurta taarga la'aanta ah ee magaalada gudaheeda ku kaxeynaya sharci darro waaye cid lagu qabtaan talaabo sharci laga qaadi doona mana jirto sabab lagu dafiri karo askari booliis ah oo shaqeynaya in goobtiisa lagu soo weeraro laguna dilo waxaana ka qaadi doona talaabooyin waxaana u xiran dad 3 qofood ah oo ku eedeysan arinkaas xidiglaha watay gaariga saarufta ah wuxuu ka tirsan yahay Turkisom waxaana lagu magacaabaa Xasan Daandurey waana lagu garab taagan oo lagu daba taagan yahay insha Allah waxaana la waafaji doonaa sharciga